meesha maaha inaan ka sheego. Aabahay weligiisa wuxuu u shaqeynayay dadka Soomaaliyeed, dhulka Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed. maantana waxaa ka xumahay inaan meeshan ka sheego in ilmihiisa lagu dulminayo magaca dowladda Soomaaliyeed, in ilmihiisa ayagoo wadankooda joogaan guryahooda laga qaatay oo guryahooda xoog lagu degan yahay. dadka guryahooda deganna ma aha dad shacbi ah, waxaa waa dad dowladda Soomaaliyeed u shaqeeyaan, waxaa waa dad kitaabkii soo mareen. xildhibaan Khadiijo iyo oo hadda dhimatay iyo Mahad Cabdilaahi Cawid, labadooda way noo imaadeen. guryaha waa ka ijaarnay. Cawidna sanad uu bixiyey, Khadiijona 2 sano ay bixisay, kadibna labadooda way diideen inay lacag bixiyaan. hadda labadooda waxaa u malaynaa 10 sano bay deganaayeen guryaha, xoogna way ku deganaayeen. albaabka gurigeena ma istaagi karno. walaalkay meel walba wuu maray, TV-ga wuu u tagay, maxkamadu wuu u tagay. maxkamadda amri fulin inay guryaha ka baxaan baa la soo saaray. amrigaasna waxaa loo fulin waayey Khadiijo baqdinteeda. Khadiijo waa laga baqi jiray. qof booliisna ma ka bixin karo, wasiir meel ma ka bixin karo. haddana way dhimatay. haddee dhimatayna weli wuu nagu sii socdaa dulmiga. ilmaheeda baa weli guryahan degan, ilmaheeda baa weli xoog noo sheeganayaan. markay dhimatay waa u tagnay, waa usoo tacsiyeenay. ilmaheeda iyo ehelkeeda iyo walaalaheed baa meesha joogeen. meesha ehelkeeda keliyana ma joogin, meesha waxaa joogeen xildhibaano badan, jeneraalo iyo dad dowladda u shaqeeyaan oo dhanna way joogeen. kulligoodna way la socdaan sheekadan, wayna ogyihiin inay xoog ku haysto guryaheena. hadda wax ma ka dhihi karno, way dhimatay. laakiin xisaab bay u taalaa waa u malaynayaa. maanta aakhiray jirtaa, annagan xaqeena ma u cafinin. maanta waxaa ka rajeynayaa shacabka Soomaaliyeed inay i taageeraan, inay i garab istaagaan, inay videoga meel walba u diraan, share ii sameeya. maanta waxaa ka rajeynayaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa inay arrinteedan wax ka qabtaan. Mahad Cawidna gurigeena inaan laga saaro, Khadiijo ilmaheedana inay gurigeena laga saaro. annaga dad yarar baan ahnay, aabaheen markuu dhintay raja ahayn, agoonaan ahnay. hooyadeenna guryahan nafteeda gurigu cawad ku jiro baa hooyadeen xabad lagu dhiftay oo isbitaal loo kaxeeyay, oo ilaa maalinta waxaa i dhalayna jeneraal maxamed abshir hamaan. aabahay ilaah u naxariisto, wuxuu dhintay 2017. aabahay wuxuu ahaa generaalka Soomaaliya ugu horeeyay, taliyaha ciidanka booliiska. taariikhdiisana waxaa u malaynayaa waxaa waa taariikh qof walba og yahay, meesha maaha inaan ka sheego. aabahay weligiisa wuxuu u shaqeynayay dadka Soomaaliyeed, dhulka Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed. maantana waxaa ka xumahay inaan meeshan ka sheego in ilmihiisa lagu dulminayo magaca dowladda Soomaaliyeed, in ilmihiisa ayagoo wadankooda joogaan guryahooda laga qaatay oo guryahooda xoog lagu degan yahay. dadka guryahooda deganna ma aha dad shacbi ah, waxaa waa dad dowladda Soomaaliyeed u shaqeeyaan, waxaa waa dad kitaabkii soo mareen. xildhibaan Khadiijo iyo oo hadda dhimatay iyo Mahad Cabdilaahi Cawid, labadooda way noo imaadeen. guryaha waa ka ijaarnay. Cawidna sanad uu bixiyey, Khadiijona 2 sano ay bixisay, kadibna labadooda way diideen inay lacag bixiyaan. hadda labadooda waxaa u malaynaa 10 sano bay deganaayeen guryaha, xoogna way ku deganaayeen. albaabka gurigeena ma istaagi karno. walaalkay meel walba wuu maray, TV-ga wuu u tagay, maxkamadu wuu u tagay. maxkamadda amri fulin
inay guryaha ka baxaan baa la soo saaray. amrigaasna waxaa loo fulin waayey khadiijo baqdinteeda. khadiijo waa laga baqi jiray. qof booliisna ma ka bixin karo wasiir meel ma ka bixin karo. haddana way dhimatay. haddee dhimatayna weli wuu nagu sii socdaa dulmiga. ilmaheeda baa weli guryahan degan. ilmaheeda baa weli xoog noo sheeganayaan. markay dhimatay waa u tagnay, waa u soo tacsiyeenay. ilmaheeda iyo ehelkeeda iyo walaalaheed baa meesha joogeen. meesha ehelkeeda keliyana ma joogin, meesha waxaa joogeen xildhibaano badan, jeneraalo iyo dad dowladda u shaqeeyaan oo dhanna way joogeen. kulligoodna way la socdaan sheekadan, wayna ogyihiin inay xoog ku haysto guryaheena. hadda wax ma ka dhihi karno, way dhimatay. laakiin xisaabay u taalaa aa u malaynayaa. maanta aakhiray jirtaa. annagan xaqeena ma u cafinin. maanta waxaa ka rajeynayaa shacabka soomaaliyeed inay itaageeraan, inay garab istaagaan, inay videoga meel walba u diraan, share ii sameeya. maanta waxaa ka rajeynayaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa inay arrinteedan wax ka qabtaan. mahad cawidna gurigeena inaan laga saaro, khadiijo ilmaheedana inay gurigeena laga saaro. annaka dad yarar baan ahnay. aabaheen markuu dhintay raja ahayn, agoonaan ahnay. hooyadeenna guryahan nafteeda gurigu cawad ku jiro baa hooyadeen xabad lagu dhuftay oo isbitaal loo kaxeeyay oo ilaa maalinta waxaa i dhalayna generaal maxamed abshir hamaan. aabahay ilaah u naxariisto, wuxuu dhintay 2017. aabahay wuxuu ahaa generaalka soomaaliya ugu horeeye taliyaha ciidanka booliiska. taariikhdiisana waxaa u malaynayaa waxaa waa taariikh qof walba og yahay, meesha maaha inaan ka sheego. aabahay weligiisa wuxuu u shaqeynayay dadka soomaaliyeed, dhulka soomaaliyeed iyo calanka soomaaliyeed. maantana waxaa ka xumahay inaan meeshan ka sheego in ilmihiisa lagu dulminayo magaca dowladda soomaaliyeed, in ilmihiisa ayagoo wadankooda joogaan guryahooda laga qaatay oo guryahooda xoog lagu degan yahay. dadka guryahooda deganna ma aha dad shacbi ah, waxaa waa dad dowladda soomaaliyeed u shaqeeyaan, waxaa waa dad kitaabkii soo mareen. xildhibaan khadiijo iyo oo hadda dhimatay iyo mahad cabdilaahi cawid, labadooda way noo imaadeen. guryaha waa ka ijaarnay. cawadna sanad u bixiyey, khadiijana 2 sano ay bixisay. kadibna labadooda way diideen inay lacag bixiyaan. hadda labadooda waxaa u malaynaa 10 sano bay deganaayeen guryaha, xoogna way ku deganaayeen. albaabka gurigeena ma istaagi karno. walaalkay meel walba wuu maray, tv-ga wuu u tagay, maxkamadu wuu u tagay. maxkamadda amri fulin inay guryaha ka baxaan baa la soo saaray. amrigaasna waxaa loo fulin waayey khadiijo baqdinteeda. khadiijo waa laga baqi jiray. qof booliisna ma ka bixin karo wasiir meel ma ka bixin karo. haddana way dhimatay. haddee dhimatayna weli wuu nagu sii socdaa dulmiga. ilmaheeda baa weli guryahan degan. ilmaheeda baa weli xoog noo sheeganayaan. markay dhimatay waa u tagnay, waa u soo tacsiyeenay. ilmaheeda iyo ehelkeeda iyo walaalaheed baa meesha joogeen. meesha ehelkeeda keliyana ma joogin, meesha waxaa joogeen xildhibaano badan, jeneraalo iyo dad dowladda u shaqeeyaan oo dhanna way joogeen. kulligoodna way la socdaan sheekadan, wayna ogyihiin inay xoog ku haysto guryaheena. hadda wax ma ka dhihi karno, way dhimatay. laakiin xisaabay u taalaa aa u malaynayaa. maanta aakhiray jirtaa. annagan xaqeena ma u cafinin. maanta waxaa ka rajeynayaa shacabka soomaaliyeed inay itaageeraan, inay garab istaagaan, inay videoga meel walba u diraan,
sheer ii sameeya. Maanta waxaa ka rajeynayaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa inay arrinteedan wax ka qabtaan. Mahad Cawidna gurigeena inaan laga saaro, Khadiijo ilmaheedana inay gurigeena laga saaro. Anaka dad yarar baan ahnay, aabaheen markuu dhintay rajo ahayn, agoonaan ahnay. Hooyadeenna guryahan nafteeda gurigu cawad ku jiro baa hooyadeen xabad lagu dhuftay oo isbitaal loo kaxeeyay oo ilaa maalinta waxaa i dhalayna Generaal Maxamed Abshir Hamaan. Aabahay ilaah u naxariisto ku dhintay 2017. Aabahay wuxuu ahaa generaalka Soomaaliya ugu horeeyay taliyaha ciidanka booliiska. taariikhdiisana waxaa u maleynayaa waxaa waa taariikh qof walba og yahay, meesha maaha inaan ka sheego. Aabahay weligiisa wuxuu u shaqeynayay dadka Soomaaliyeed, dhulka Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed. maantana waxaa ka xumahay inaan meeshan ka sheego in ilmihiisa lagu dulminayo magaca dowladda Soomaaliyeed, in ilmihiisa ayagoo wadankooda joogaan guryahooda laga qaatay oo guryahooda xoog lagu degan yahay. dadka guryahooda deganna ma aha dad shacbi ah, waxaa waa dad dowladda Soomaaliyeed u shaqeeyaan, waxaa waa dad kitaabkii soo mareen. xildhibaan Khadiijo iyo oo hadda dhimatay iyo Mahad Cabdilaahi Cawid, labadooda way noo imaadeen, guryaha waa ka ijaarnay. Cawadna sanad uu bixiyey, Khadiijana 2 sano ay bixisay, kadibna labadooda way diideen inay lacag bixiyaan. hadda labadooda waxaa u malaynaa 10 sano bay deganaayeen guryaha, xoogna way ku deganaayeen. albaabka gurigeena ma istaagi karno. walaalkay meel walba wuu maray, TV-ga wuu u tagay, maxkamaddu wuu u tagay, maxkamadda amri fulin inay guryaha ka baxaan baa la soo saaray. amrigaasna waxaa loo fulin waayey Khadiijo baqdinteeda. Khadiijo waa laga baqi jiray. qof booliisna ma ka bixin karo, wasiir meel ma ka bixin karo. haddana way dhimatay. haddee dhimatayna weli wuu nagu sii socdaa dulmiga. ilmaheeda baa weli guryahan degan, ilmaheeda baa weli xoog noo sheeganayaan. markay dhimatay waa u tagnay, waa usoo tacsiyeenay. ilmaheeda iyo ehelkeeda iyo walaalaheed baa meesha joogeen. meesha ehelkeeda keliyana ma joogin, meesha waxaa joogeen xildhibaano badan, jeneraalo iyo dad dowladda u shaqeeyaan oo dhanna way joogeen. kulligoodna way la socdaan sheekadan, wayna og yihiin inay xoog ku haysto guryaheena. hadda wax ma ka dhihi karno, way dhimatay. laakiin xisaabay u taalaa aa u malaynayaa. maanta aakhiray jirtaa, annagana xaqeena ma u cafinin. maanta waxaa ka rajeynayaa shacabka Soomaaliyeed inay i taageeraan, inay i garab istaagaan, inay videoga meel walba u diraan, sheer ii sameeya. maanta waxaa ka rajeynayaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa inay arrinteedan wax ka qabtaan. Mahad Cawidna gurigeena inaan laga saaro, Khadiijo ilmaheedana inay gurigeena laga saaro. annaka dad yarar baan ahnay, aabaheen markuu dhintay rajo ahayn, agoonaan ahnay. hooyadeenna guryahan nafteeda gurigu cawad ku jiro baa hooyadeen xabad lagu dhuftay oo isbitaal loo kaxeeyay oo ilaa maalinta waxaa i dhalayna Generaal Maxamed Abshir Hamaan. aabahay ilaah u naxariisto ku dhintay 2017. aabahay wuxuu ahaa generaalka Soomaaliya ugu horeeyay taliyaha ciidanka booliiska. taariikhdiisana waxaa u maleynayaa waxaa waa taariikh qof walba og yahay, meesha maaha inaan ka sheego. aabahay weligiisa wuxuu u shaqeynayay dadka Soomaaliyeed, dhulka Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed. maantana waxaa ka xumahay inaan meeshan ka sheego in ilmihiisa lagu dulminayo magaca dowladda Soomaaliyeed,
in ilmihiisa ayakoo wadankooda joogaan guryahooda laga qaatay oo guryahooda xoog lagu degan yahay. dadka guryahooda deganna ma aha dad shacbi ah, waxaa waa dad dowladda Soomaaliyeed u shaqeeyaan, waxaa waa dad kitaabkii soo mareen. xildhibaan Khadiija iyo oo hadda dhimatay iyo Mahad Cabdilaahi Cawid, labadooda way noo imaadeen. guryaha waa ka ijaarnay. Cawadna sanad uu bixiyey, Khadiijana 2 sano ay bixisay, kadibna labadooda way diideen inay lacag bixiyaan. hadda labadooda waxaa u malaynaa 10 sano bay deganaayeen guryaha, xoogna way ku deganaayeen. albaabka gurigeena ma istaagi karno. walaalkay meel walba wuu maray, TV-ga wuu u tagay, maxkamadu wuu u tagay. maxkamadda amri fulin inay guryaha ka baxaan baa la soo saaray. amrigaasna waxaa loo fulin waayey Khadiija baqdinteeda. Khadiija waa laga baqi jiray. qof booliisna ma ka bixin karo, wasiir meel ma ka bixin karo. haddana way dhimatay. haddee dhimatayna weli wuu nagu sii socdaa dulmiga. ilmaheeda baa weli guryahan degan, ilmaheeda baa weli xoog noo sheeganayaan. markay dhimatay waa u tagnay, waa u soo tacsiyeenay. ilmaheeda iyo ehelkeeda iyo walaalaheed baa meesha joogeen. meesha ehelkeeda keliyana ma joogin, meesha waxaa joogeen xildhibaano badan, jeneraalo iyo dad dowladda u shaqeeyaan oo dhanna way joogeen. kulligoodna way la socdaan sheekadan, wayna ogyihiin inay xoog ku haysto guryaheena. hadda wax ma ka dhihi karno, way dhimatay. laakiin xisaab bay u taalaa aa u malaynayaa. maanta aakhiray jirtaa, annagan xaqeena ma u cafinin. maanta waxaa ka rajeynayaa shacabka Soomaaliyeed inay i taageeraan, inay i garab istaagaan, inay videoga meel walba u diraan, share ii sameeya. maanta waxaa ka rajeynayaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa inay arrinteedan wax ka qabtaan. Mahad Cawidna gurigeena inaan laga saaro, Khadiija ilmaheedana inay gurigeena laga saaro. annaga dad yarar baan ahnay, aabaheen markuu dhintay raja ahayn, agoonaan ahnay. hooyadeenna guryahan nafteeda, gurigu cawad ku jiro baa hooyadeen xabad lagu dhuftay oo isbitaal loo kaxeeyay, oo ilaa maalinta waxaa i dhalaynaa jenaraal maxamed abshir hamaan. aabahay ilaah u naxariisto, wuxuu dhintay 2017. aabahay wuxuu ahaa generaalka Soomaaliya ugu horeeyay taliyaha ciidanka booliiska. taariikhdiisana waxaa u malaynayaa waxaa waa taariikh qof walba og yahay, meesha maaha inaan ka sheego. aabahay weligiisa wuxuu u shaqeynayay dadka Soomaaliyeed, dhulka Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed. maantana waxaa ka xumahay inaan meeshan ka sheego in ilmihiisa lagu dulminayo magaca dowladda Soomaaliyeed, in ilmihiisa ayakoo wadankooda joogaan guryahooda laga qaatay oo guryahooda xoog lagu degan yahay. dadka guryahooda deganna ma aha dad shacbi ah, waxaa waa dad dowladda Soomaaliyeed u shaqeeyaan, waxaa waa dad kitaabkii soo mareen. xildhibaan Khadiija iyo oo hadda dhimatay iyo Mahad Cabdilaahi Cawid, labadooda way noo imaadeen. guryaha waa ka ijaarnay. cawadna sanad uu bixiyey, Khadiijana 2 sano ay bixisay, kadibna labadooda way diideen inay lacag bixiyaan. hadda labadooda waxaa u malaynaa 10 sano bay deganaayeen guryaha, xoogna way ku deganaayeen. albaabka gurigeena ma istaagi karno. walaalkay meel walba wuu maray, TV-ga wuu u tagay, maxkamadu wuu u tagay. maxkamadda amri fulin inay guryaha ka baxaan baa la soo saaray. amrigaasna waxaa loo fulin waayey Khadiija baqdinteeda. Khadiija waa laga baqi jiray. qof booliisna ma ka bixin karo, wasiir meel ma ka bixin karo.
haddana way dhimatay haddee dhimatayna weli wuu nagu sii socdaa dulmiga ilmaheeda baa weli guryahan degan ilmaheeda baa weli xoog noo sheeganayaan markay dhimatay waa u tagnay waa usoo tacsiyeenay ilmaheeda iyo ehelkeeda iyo walaalaheed baa meesha joogeen meesha ehelkeeda keliyana ma joogin meesha waxaa joogeen xildhibaano badan jeneraalo iyo dad dowladda u shaqeeyaan oo dhanna way joogeen kulligoodna way la socdaan sheekadan wayna ogyihiin inay xoog ku haysto guryaheena hadda wax ma ka dhihi karno way dhimatay laakiin xisaabay u taalaa waa u malaynayaa maanta aakhiray jirtaa annagan xaqeena ma u cafinin maanta waxaa ka rajeynayaa shacabka soomaaliyeed inay i taageeraan inay i garab istaagaan inay videoga meel walba u diraan share ii sameeya maanta waxaa ka rajeynayaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa inay arrinteedan wax ka qabtaan mahad cawidna gurigeena inaan laga saaro khadiijo ilmaheedana inay gurigeena laga saaro annaka dad yarar baan ahnay aabaheen markuu dhintay rajo ahayn agoonaan ahnay hooyadeenna guryahan nafteeda gurigu cawad ku jiro baa hooyadeen xabad lagu dhiftay oo isbitaal loo kaxeeyay oo ilaa maalinta waxaa i dhalayna generaal maxamed abshir hamaan aabahay ilaah u naxariisto wuxuu dhintay 2017 aabahay wuxuu ahaa generaalka soomaaliya ugu horeeyay taliyaha ciidanka booliiska taariikhdiisana waxaa u malaynayaa waxaa waa taariikh qof walba og yahay meesha maaha inaan ka sheego aabahay weligiisa wuxuu u shaqeynayay dadka soomaaliyeed dhulka soomaaliyeed iyo calanka soomaaliyeed maantana waxaa ka xumahay inaan meeshan ka sheego in ilmihiisa lagu dulminayo magaca dowladda soomaaliyeed in ilmihiisa ayagoo wadankooda joogaan guryahooda laga qaatay oo guryahooda xoog lagu degan yahay dadka guryahooda deganna ma aha dad shacbi ah waxaa waa dad dowladda soomaaliyeed u shaqeeyaan waxaa waa dad kitaabkii soo mareen xildhibaan khadiijo iyo oo hadda dhimatay iyo mahad cabdilaahi cawid labadooda way noo imaadeen guryaha waa ka ijaarnay cawadna sanaduu bixiyey khadiijana 2 sano ay bixisay kadibna labadooda way diideen inay lacag bixiyaan hadda labadooda waxaa u malaynaa 10 sano bay deganaayeen guryaha xoogna way ku deganaayeen albaabka gurigeena ma istaagi karno walaalkay meel walba wuu maray tv-ga wuu u tagay maxkamadu wuu u tagay maxkamadda amri fulin inay guryaha ka baxaan baa la soo saaray amrigaasna waxaa loo fulin waayey khadiijo baqdinteeda khadiijo waa laga baqi jiray qof booliisna ma ka bixin karo wasiir meel ma ka bixin karo haddana way dhimatay haddee dhimatayna weli wuu nagu sii socdaa dulmiga ilmaheeda baa weli guryahan degan ilmaheeda baa weli xoog noo sheeganayaan markay dhimatay waa u tagnay waa usoo tacsiyeenay ilmaheeda iyo ehelkeeda iyo walaalaheed baa meesha joogeen meesha ehelkeeda keliyana ma joogin meesha waxaa joogeen xildhibaano badan jeneraalo iyo dad dowladda u shaqeeyaan oo dhanna way joogeen kulligoodna way la socdaan sheekadan wayna ogyihiin inay xoog ku haysto guryaheena hadda wax ma ka dhihi karno way dhimatay laakiin xisaabay u taalaa waa u malaynayaa maanta aakhiray jirtaa annagan xaqeena ma u cafinin maanta waxaa ka rajeynayaa shacabka soomaaliyeed inay i taageeraan inay i garab istaagaan inay videoga meel walba u diraan share ii sameeya maanta waxaa ka rajeynayaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa inay arrinteedan wax ka qabtaan mahad cawidna gurigeena inaan laga saaro khadiijo ilmaheedana inay gurigeena laga saaro annaka dad yarar baan ahnay aabaheen markuu dhintay
raja ahayn agoonaan ahnay hooyadeenna guryahan nafteeda gurigu cawad ku jiro baa hooyadeen xabad lagu dhuftay oo isbitaal loo kaxeeyay oo ilaa maalinta waxaa idalaynaa generaal maxamed abshir hamaan aabahay ilaah u naxariisto ku dhintay 2017 aabahay wuxuu ahaa generaalka Soomaaliya ugu horeeyay taliyaha ciidanka booliiska taariikhdiisana waxaa u maleynayaa waa taariikh qof walba og yahay meesha maaha inaan ka sheego aabahay weligiisa wuxuu u shaqeynayay dadka Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed maantana waxaa ka xumahay inaan meeshan ka sheego in ilmihiisa lagu dulminayo magaca dawladda Soomaaliyeed in ilmihiisa ayagoo wadankooda joogaan guryahooda laga qaatay oo guryahooda xoog lagu degan yahay dadka guryahooda deganna ma aha dad shacbi ah waxaa waa dad dawladda Soomaaliyeed u shaqeeyaan waxaa waa dad kitaabkii soo mareen xildhibaan Khadiijo iyo oo hadda dhimatay iyo mahad cabdilaahi cawid labadooda waynoo imaadeen guryaha waa ka ijaarnay cawadna sanad u bixiyay Khadiijana 2 sano ay bixisay kadibna labadooda way diideen inay lacag bixiyaan hadda labadooda waxaa u maleynaa 10 sano bay deganaayeen guryaha xoogna way ku deganaayeen albaabka gurigeena ma istaagi karno walaalkay meel walba uu maray TV-ga uu tagay maxkamadu uu tagay maxkamada amri fulin inay guryaha ka baxaan baa la soo saaray amrigaasna waxaa loo fulin waayay Khadiija baqdinteeda Khadiija waa laga baqi jiray qof booliisna ma ka bixin karo wasiir meel ma ka bixin karo haddana way dhimatay haddee dhimatayna weli wanagu sii socdaa dulmiga ilmaheeda baa weli guryahan degan ilmaheeda baa weli xoog noo sheeganaya markay dhimatay waa u tagnay waa u soo tacsiyeenay ilmaheeda iyo ehelkeeda iyo walaalaheed baa meesha joogeen meesha ehelkeeda keliyana ma joogin meesha waxaa joogeen xildhibaano badan generaalo iyo dad dawladda u shaqeeyaan oo dhanna way joogeen kulligoodna way la socdaan sheekadan wayna og yihiin inay xoog ku haysto guryaheena hadda wax ma ka dhihi karno way dhimatay laakiin xisaabay u taalaa u maleynayaa maanta akhiray jirta anakan xaqeena mu cafinin maanta waxaa ka rajeynayaa shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan inay garab istaagaan inay videoga meel walba u diraan share ii sameeya maanta waxaa ka rajeynayaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaarihiisa inay arrinteedan wax ka qabtaan mahad cawidna gurigeena inaan laga saaro Khadiija ilmaheedana inay gurigeena laga saaro anaka dad yar baan ahnay aabahay markuu dhintay raja ahayn agoonaan ahnay hooyadeenna guryahan nafteeda gurigu cawad ku jiro baa hooyadeen xabad lagu dhuftay oo isbitaal loo kaxeeyay oo ilaa maalinta waxaa idalaynaa generaal maxamed abshir hamaan aabahay ilaah u naxariisto ku dhintay 2017 aabahay wuxuu ahaa generaalka Soomaaliya ugu horeeyay taliyaha ciidanka booliiska taariikhdiisana waxaa u maleynayaa waa taariikh qof walba og yahay meesha maaha inaan ka sheego aabahay weligiisa wuxuu u shaqeynayay dadka Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed maantana waxaa ka xumahay inaan meeshan ka sheego in ilmihiisa lagu dulminayo magaca dawladda Soomaaliyeed in ilmihiisa ayagoo wadankooda joogaan guryahooda laga qaatay oo guryahooda xoog lagu degan yahay dadka guryahooda deganna ma aha dad shacbi ah waxaa waa dad dawladda Soomaaliyeed u shaqeeyaan waxaa waa dad kitaabkii soo mareen xildhibaan Khadiijo
iyo oo hadda dhimatay iyo mahad cabdilaahi cawid labadooda way noo imaadeen guryaha waa ka ijaarnay cawadna sanad uu bixiyey khadiijana 2 sano ay bixisay kadibna labadooda way diideen inay lacag bixiyaan hadda labadooda waxaa u malaynaa 10 sano bay deganaayeen guryaha xoogna way ku deganaayeen albaabka gurigeena ma istaagi karno walaalkay meel walba wuu maray tv-ga wuu u tagay maxkamadu wuu u tagay maxkamadda amri fulin inay guryaha ka baxaan baa la soo saaray amrigaasna waxaa loo fulin waayey khadiijo baqdinteeda khadiijo waa laga baqi jiray qof booliisna ma ka bixin karo wasiir meel ma ka bixin karo haddana way dhimatay haddee dhimatayna weli wanagu sii socdaa dulmiga ilmaheeda baa weli guryahan degan ilmaheeda baa weli xoog noo sheeganayaan markay dhimatay waa u tagnay waa usoo tacsiyeenay ilmaheeda iyo ehelkeeda iyo walaalaheed baa meesha joogeen meesha ehelkeeda keliyana ma joogin meesha waxaa joogeen xildhibaano badan jeneraalo iyo dad dowladda u shaqeeyaan oo dhanna way joogeen kulligoodna way la socdaan sheekadan wayna og yihiin inay xoog ku haysto guryaheena hadda wax ma ka dhihi karno way dhimatay laakiin xisaabay u taalaa aan u malaynayaa maanta aakhiray jirtaa annagan xaqeena ma u cafinin maanta waxaa ka rajeynayaa shacabka soomaaliyeed inay itaageeraan inay garab istaagaan inay videoga meel walba u diraan share ii sameeya maanta waxaa ka rajeynayaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa inay arrinteedan wax ka qabtaan mahad cawidna gurigeena inaan laga saaro khadiijo ilmaheedana inay gurigeena laga saaro annaka dad yarar baan ahnay aabaheen markuu dhintay raja ahayn agoonaan ahnay hooyadeenna guryahan nafteeda gurigu cawad ku jiro baa hooyadeen xabad lagu dhiftay oo isbitaal loo kaxeeyay oo ilaa maalinta waxaa i dhalayna generaal maxamed abshir hamaan aabahay ilaah u naxariisto ku dhintay 2017 aabahay wuxuu ahaa generaalka soomaaliya ugu horeeyay taliyaha ciidanka booliiska taariikhdiisana waxaa u malaynayaa waxaa waa taariikh qof walba og yahay meesha maaha inaan ka sheego aabahay weligiisa wuxuu u shaqeynayay dadka soomaaliyeed dhulka soomaaliyeed iyo calanka soomaaliyeed maantana waxaa ka xumahay inaan meeshan ka sheego in ilmihiisa lagu dulminayo magaca dowladda soomaaliyeed in ilmihiisa ayakoo wadankooda joogaan guryahooda laga qaatay oo guryahooda xoog lagu degan yahay dadka guryahooda deganna ma aha dad shacbi ah waxaa waa dad dowladda soomaaliyeed u shaqeeyaan waxaa waa dad kitaabkii soo mareen xildhibaan khadiijo iyo oo hadda dhimatay iyo mahad cabdilaahi cawid labadooda way noo imaadeen guryaha waa ka ijaarnay cawadna sanad uu bixiyey khadiijana 2 sano ay bixisay kadibna labadooda way diideen inay lacag bixiyaan hadda labadooda waxaa u malaynaa 10 sano bay deganaayeen guryaha xoogna way ku deganaayeen albaabka gurigeena ma istaagi karno walaalkay meel walba wuu maray tv-ga wuu u tagay maxkamadu wuu u tagay maxkamadda amri fulin inay guryaha ka baxaan baa la soo saaray amrigaasna waxaa loo fulin waayey khadiijo baqdinteeda khadiijo waa laga baqi jiray qof booliisna ma ka bixin karo wasiir meel ma ka bixin karo haddana way dhimatay haddee dhimatayna weli wanagu sii socdaa dulmiga ilmaheeda baa weli guryahan degan ilmaheeda baa weli xoog noo sheeganayaan markay dhimatay waa u tagnay waa usoo tacsiyeenay ilmaheeda iyo ehelkeeda iyo walaalaheed baa meesha joogeen
meesha ehelkeeda keliyana ma joogin, meesha waxaa joogeen xildhibaano badan, jeneraalo iyo dad dowladda u shaqeeyaan oo dhanna way joogeen. kulligoodna way la socdaan sheekadan, wayna ogyihiin inay xoog ku haysto guryaheena. hadda wax ma ka dhihi karno, way dhimatay, laakiin xisaabay u taalaa aa u malaynayaa. maanta aakhiray jirtaa, annagan xaqeena ma u cafinin. maanta waxaa ka rajeynayaa shacabka soomaaliyeed inay i taageeraan, inay i garab istaagaan, inay videoga meel walba u diraan, share ii sameeya. maanta waxaa ka rajeynayaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa inay arrinteedan wax ka qabtaan. mahad cawidna gurigeena inaan laga saaro, khadiijo ilmaheedana inay gurigeena laga saaro. annaka dad yarar baan ahnay, aabaheen markuu dhintay raja ahayn, agoonaan ahnay. hooyadeenna guryahan nafteeda gurigu cawad ku jiro baa hooyadeen xabad lagu dhuftay oo isbitaal loo kaxeeyay, oo ilaa maalinta waxaa i dhalaynaa generaal maxamed abshir hamaan. aabahay ilaah u naxariisto, wuxuu dhintay 2017. aabahay wuxuu ahaa generaalka soomaaliya ugu horeeye taliyaha ciidanka booliiska. taariikhdiisana waxaa u malaynayaa waxaa waa taariikh qof walba og yahay, meesha maaha inaan ka sheego. aabahay weligiisa wuxuu u shaqeynayay dadka soomaaliyeed, dhulka soomaaliyeed iyo calanka soomaaliyeed. maantana waxaa ka xumahay inaa meeshan ka sheego in ilmihiisa lagu dulminayo magaca dowladda soomaaliyeed, in ilmihiisa ayakoo wadankooda joogaan guryahooda laga qaatay, oo guryahooda xoog lagu degan yahay. dadka guryahooda deganna ma aha dad shacbi ah, waxaa waa dad dowladda soomaaliyeed u shaqeeyaan, waxaa waa dad kitaabkii soo mareen. xildhibaan khadiijo iyo oo hadda dhimatay iyo mahad cabdilaahi cawid, labadooda way noo imaadeen. guryaha waa ka ijaarnay. cawadna sanad u bixiyey, khadiijona 2 sano ay bixisay, kadibna labadooda way diideen inay lacag bixiyaan. hadda labadooda waxaa u malaynaa 10 sano bay deganaayeen guryaha, xoogna way ku deganaayeen. albaabka gurigeena ma istaagi karno. walaalkay meel walba wuu maray, tv-ga wuu u tagay, maxkamadu wuu u tagay. maxkamadda amri fulin inay guryaha ka baxaan baa la soo saaray. amrigaasna waxaa loo fulin waayey khadiijo baqdinteeda. khadiijo waa laga baqi jiray. qof booliisna ma ka bixin karo, wasiir meel ma ka bixin karo. haddana way dhimatay. haddee dhimatayna weli wanagu sii socdaa dulmiga. ilmaheeda baa weli guryahan degan, ilmaheeda baa weli xoog noo sheeganayaan. markay dhimatay waa u tagnay, waa usoo tacsiyeenay. ilmaheeda iyo ehelkeeda iyo walaalaheed baa meesha joogeen. meesha ehelkeeda keliyana ma joogin, meesha waxaa joogeen xildhibaano badan, jeneraalo iyo dad dowladda u shaqeeyaan oo dhanna way joogeen. kulligoodna way la socdaan sheekadan, wayna ogyihiin inay xoog ku haysto guryaheena. hadda wax ma ka dhihi karno, way dhimatay, laakiin xisaabay u taalaa aa u malaynayaa. maanta aakhiray jirtaa, annagan xaqeena ma u cafinin. maanta waxaa ka rajeynayaa shacabka soomaaliyeed inay i taageeraan, inay i garab istaagaan, inay videoga meel walba u diraan, share ii sameeya. maanta waxaa ka rajeynayaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa inay arrinteedan wax ka qabtaan. mahad cawidna gurigeena inaan laga saaro, khadiijo ilmaheedana inay gurigeena laga saaro. annaka dad yarar baan ahnay, aabaheen markuu dhintay raja ahayn, agoonaan ahnay. hooyadeenna guryahan nafteeda gurigu cawad ku jiro baa hooyadeen xabad lagu dhuftay oo isbitaal loo kaxeeyay, oo ilaa maalinta